Bismillah. Kusoo dhawaada macadka Dambar Academy ee laga barto cilmiga technology-ga noocyadiisa kala duwan. Magacaygu waa Engineer Xasan Cali Nageeye, ku magac dheer Engineer Nageeye. Waxaan halkan ku duubayaa maadada HTML. Waxaan rajaynayaa qof walba ee muuqaalkan uu soo gaaro in uu aad iyo aad uga bagan doono. Waxaan halkan kusoo koobaynaa waa maxay HTML. HTML waxay u taagan tahay afartaas xarfood Hypertext Markup Language. HTML waa markup language ee ma ahan programming language. Waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo creating web pageska, in lagu abuuro web pageska, website-yada iyo wax lamida. Waxay ka mid tahay 3 program oo loogu talagalay muhiim inay tahay uu barto qofka ah web developer-ka ah. Waxaa ka mid ah 3daas HTML oo number 1 ah, CSS iyo JavaScript. HTML waxay diyaarinaysaa website-kaaga qolfooftiisa hadday noqon lahayd qoraallo in la soo bandhigo, videos, codadkii, sawiradii iyo waxyaabo lamid ah. CSS-na waxay u taagan tahay style siintii, in qoraalladii fartooda midab loo yeelo, style-kooda la qurxiyo, muuqaaladii sidoo kaleeta style loo yeelo, size-kooda la weyneeyo marna la yareeyo, sawiradii iyo wax lamid ah. JavaScript-in waxaa loo isticmaalaa user-ka event-giisa in lagu maamulo. Haddii meeshan uu click siiyo, iga qari haddii uu dhaho laga qarin karo, loo soo muujin karo iyo waxyaabo lamid ah. Annaga marka meeshan waxaan xoogga saaraynaa HTML. HTML waxaa soo iqtiraacay ama soo saaray nin loo yaqaano Tim Berners-Lee sanadku markuu ahaa 1989. waxaa jira marka every program walba ee aad baranayso waxaa u baahan tahay tools ama softwares. waxaa halkan ku baranaynaa toolska ama softwareska aan u baahannahay ee tahay lagama maarmaanka ah inaan isticmaalno. toolskaas waxaa ku qeexaynaa magac ahaan in loo yaqaano text editor. text editorsku way badan yihiin. waxaa ka mid ah Notepad oo ah mid computerkaaga default kusoo dego ee aad u isticmaali karto. waxaa ku xigo Sublime Text mid loo yaqaano asigana Google-ka lagala soo dego. waxaa ku xigo Visual Studio oo asigana sidoo kale Google-ka lagala soo dego, iyo kuwa kaloo badan oo Notepad++ iyo NetBeans ay ka mid yihiin. anaga marka course-kan waxaa ku qaadanaynaa Sublime Text. waxaa arki doonaa marka softwareskan sida loo soo degsado, computerka loogu install gareeyo. okay, waxaa aadi doonaa marka browserkaaga soo kici. okay, aniga waxaa iska xiraa default tabiskan iisoo kacayo. waxaa furanaynaa tab cusub. okay, halkaas ayaad ku qori doontaa wax loo yaqaano Sublime Text. kadibna waxaa taabataa enter. linkiga ugu horeeya ee ku gey doono sublimetext.com ayaad ku dhufanaysaa. halkan marka lagu keeno softwarekan waxaa ula degi kartaa adigoo isticmaalaya dhowr platform waxaa loo yaqaanaa waxaa u baahan tahay inaad doorato operating systemka adiga aa u baahan tahay. operating systemka anaga aa isticmaalayna waa Windows. haddii aad isticmaalaysa Mac, haddii aad isticmaalaysa Linux, ay adigay kugu xiran tahay. anaga waxaa dhahaynaa Windows. intaa ka dooranaynaa Windows automatic. waxaa noo degay softwareki aad iyo aad u fudud yahay. waxaa rabnaa softwarekan inaan install garayno. laba mid waa samayn kartaa, in double click aad siiso iyo in aad tagto locationka uu ku install gareeyay ee ah downloadingka. waxaa dhahaynaa file managerkan noo fur, kadibna waxaa tagaynaa download file. waa kana. markaa rabta inaad install garaysid waxaa samaynaysaa double click. waxaa lagu weydiin doonaa dialog confirmation kuu soo bixi doono ee ah ma hubtaa inaad install garaynayso. waxaa dhahaynaa yes. aniga hadduu igu jiraa mar kale ku shubaa wuu qaadan doonaa, keliya kii hore ayaa kan lagu bedeli doonaa. waxaan rajaynaa adigana inaad wadadan oo kala mari doonto ee aa install garay doonto. السلام عليكم. halkaas ayaan ku joojinaynaa. casharka xiga ayaa inoo balan ah.